ninka halkan idinka muuqanaya waa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. sawirkan kalena waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. sawirkan kale hadda aad arkaysaan waa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. mas'uuliyiintan waxa ay biri oo Arbaca ah ku kulmi doonaan magaalada Ankara ee dalka Turkiga. waxaa laga hadli doonaa qadiyadda gobolka Geeska Afrika gaar ahaan khilaafka diblomaasiga ah ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. Turkiga markan waxa uu ciyaarayaa door dhexdhexaadnimo ah isagoo muddo dheer kadib ku guuleystay in si kafool ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Ahmed ay sor fadhiistaan. waxaan rabaa qodobo intaa ka duwan oo xasaasi ah inaan kula wadaago. waayo cidda tanaasushay ee ka yimid kulankan in labadan dhinac ay soo hor fadhiistaan. suuragal ma tahay qodobadii hore Itoobiya ay ugu dhagnayd in markan ay ka tanaasuli karayso. waxaan sidoo kale rabaa inaan kula wadaago Turkiga oo qaatay dhibco siyaasadeed isla markaana gacanta kaga maroojistay madaxweynayaasha dalalka Kenya iyo sidoo kale Uganda William Samoei Ruto iyo Yoweri Museveni. haddaba dhibcaha siyaasadeed ee dhinaca diblomaasiyadda ah ee Turkiga uu qaatay marka loo yimaado qadiyadda gobolka Geeska Afrika gaar ahaan khilaafkan sanad jirsaday ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya maxaa lagu tilmaami karaa. suuragal sama tahay in kulankan ka dhacaya Turkiga ee Soomaaliya iyo waliba Itoobiya ay yeelanayaan in si nabdoon uu ku soo dhamaado. maxaase ku soo beegay xilli khilaafaad adag oo maxalli ah ee Soomaaliya ka jiraan isla markaana Itoobiya maalmihii ugu dambeeyay ciidamo fara badan ay gudaha dalka Soomaaliya soo galisay gaar ahaan Jubbaland in hadda kulankan uu soo degdego. waxaan rabaa intaas oo dhan inaan isugu kaaxiro iyo waliba wararka hoose ee la xiriira wada hadalkan iyo qodobada ay suuragalka tahay in miiska la soo saaro. Cabdilcasiis Barrow ayaan ahay saaxiibayaal soo dhawaada si toos ah ayaad u daawanaysaan. fadlan si aad xog iyo macluumaad kale oo ku saabsan gobolka Geeska Afrika Soomaaliya iyo sidoo kale bariga dhexe baad u heshaan nagu soo biiro YouTube-kana subscribe dhaha. in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu biri magaalada Ankara ee dalka Turkiga uu kula kulmi doono ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya rejiimka Addis Ababa hogaamiya Abiy Ahmed. kulankan ayaa waxaa garwadeen ka noqon doona oo labada dhinac isu keenaya madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. ila dhinaca diblomaasiyadda ah ayaa ku waramaya in dalbashada kulankan iyo waliba in labadan mas'uul ay hor fadhiistaan ay ka timid dhinaca Itoobiya. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa si toos ah ula xiriiray Recep Tayyip Erdogan waxaana uu ka codsaday in si toos ah u soo farageliyo xaaladda gobolka Geeska Afrika isla markaana qadiyadda labada dhinac waa Muqdisho iyo Addis Ababa u dhaxaysa in lagu dhameeyo miiska wada hadalka. Itoobiya markan waxay u muuqanaysaa inay ka tanaasulayso qodobo ay hore ugu dhaganayd sabab la xiriira isbeddelka ka dhacay Geeska Afrika gaar ahaan doorashooyinkii Somaliland ka dhacay ee kulmiye looga adkaaday ayaa markan waxa muuqanaya in Itoobiya ay ka tanaasulayso muwaaqif ay hore ugu dhagnayd. lama oga in Abiy Ahmed uu ka tanaasuli doono inuu dib uga laabto wada hadalkii iyo waliba is-afgaradkii kowdii bishii January ee sanadkan sii dhamaanaya uu la gaaray madaxweynaha xilka ka degaya ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi. wada hadalladan ayaa waxaa la filayaa in si weyn loogu gorfayn doono qadiyadaha gobolka hadda ka taagan gaar ahaan faragelinta Itoobiya maalmihii ugu dambeysay ee ka waday Soomaaliya lahjadihii adkaa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dhaliilaysay Addis Ababa ee ku aadanayd ku xadgudubka madax banaanida iyo wadajirka dhulka Soomaaliyeed oo Itoobiya si weyn loogu dhaliilayay. waxaa sidoo kale la filayaa Soomaaliya inay miiska soo saarto in Itoobiya marka hore ay xushmayso oo ay aqbasho gaboodka ay Soomaaliya u geysatay oo dhinaca diblomaasiyadda ah iyo ku xadgudubka dhinaca qaanuunka caalamiga ah. inkastoo ilaha dhinaca diblomaasiyadda in la filayo guud ahaanba Soomaaliya dhinaceeda in mowqifka ay qabto ay adkayso haddana marna lama sheegin in Soomaaliya ay ka tanaasulayso mabaadi'da ay hore u aaminsanayd ee ah in wada hadalladu ay sii socon karaan ilaa aysan sii socon karin ilaa iyo inta Itoobiya ay cadaynayso mowqifkeeda ku aadan inay ka baxayso is-afgaradkii ay la gaartay Somaliland. qodobkan
si dhaba weli Itoobiya uma caddayn laakiin diblomaasiyiinta Soomaalida ah waxay ku doodayaan qodobkaasi kulanka ka hor in miiska wada hadalka la keenayo labada dhinac ayaa la filayaa in si aad doodooda ay isku hor dhigtaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhowr jeer la kulmay waji gabax ku aadan codsi uu hore u soo gudbistay oo ku aadanayd in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo isaga ay soo fadhiistaan laakiin dhinaca Soomaaliya ayaa arrimahaasi ka fuli waayeen kadib markii Soomaaliya ay ku adkaysatay marka ugu horeysay Itoobiya in ay ka laabato is-afgaradka ay la gaartay Somaliland isla markaana xadgudubka lagu eedeeyay ay ka samayso raaligelin toos ah oo Soomaaliya ku socotay arrintaasi diblomaasiyad ahaan Itoobiya waa ay ku dhici weysay inay tallaabadaasi qaado qobaradu waxay leeyihiin Itoobiya marka hore waxa ay ku adkaysanaysaa arrintan sabab la xiriira laba qodob oo ay muhiim tahay waa mare Itoobiya haddii arrintan ay si dhab u cadayso oo ay banaanka keento waxay u muuqanaysaa in xukuumadda Abiy Ahmed uu hogaamiyo ay Itoobiyaanka dhexdiisa waji gabax kala kulmi karaysay qodobka labaadna waxay tahay in isbedelada ka dhacaya koonfurta Soomaaliya iyo madaxda dawladda federaalka ah in Itoobiya heshiisyada ay gasho iyo waliba haddii mowqifkaasi ay ka laabato waxa u muuqanayay in aysan jirin cid si dhaba ay u aamini karaysay oo isbedelada Soomaaliya ka dhacaya yihiin kuwa soo degdegayay ama 4 sanaba mar hoggaan cusub oo talada Soomaalida imaanayay laakiin hadda wada hadalkan waxa uu dhacayaa xilli Itoobiya ciidamo fara badan ay soo gelisay gobolka Gado isla markaana khilaafka kala dhaxeeya Soomaaliya oo mar kale cirka isku shareeray warbaahinta Soomaalidana uu qabsaday marka laga yimaado wada hadallada dhinacyadan dhexmaraya dawladda Turkiga ayaa qaadatay dhinaca diblomaasiyadda ah waxayna kaga adkaatay dalalka ku yaala bariga qaaradda Afrika arrintan ayaa waxay tahay madaxweynaha dalka Kenya ee William Ruto ayaa magaalada Arusha ka sheegay bishan December in madaxweynayaasha dalalka Uganda iyo Kenya oo ay wehliyaan hogaamiyaasha dalalka Soomaaliya iyo waliba Itoobiya ay yeelan doonaan kulan afargeesood ah kaasi oo lagu xalinayo khilaafka u dhaxeeya dalalkan ku wada yaala gobolka Geeska Afrika waa Soomaaliya iyo Itoobiya inkastoo uusan madaxweynaha Kenya sheegin kulankaasi goorta uu dhacayo haddana waxaa muuqatay in Turkigu ay ka soo degdegeen oo ay madaxda Itoobiya iyo Soomaaliya ay labadaba ku qanciyeen inay hor fadhiistaan isla markaana ay isugu yimaadaan magaalada Ankara kulankan ayaa si fudud ku soo baxay in berri oo Arbaca ah uu dhacayo Soomaaliya wali doodii ayay qabtaa laakiin markan khilaaf siyaasadeed oo daaqiliya ayaa gudaha dalka ka taagan Itoobiya qudheeda culays siyaasadeed oo maxalliya ayay wajahaysaa kamana maaranto Soomaaliya inay isfaham buuxa ay wada galaan inkastoo Itoobiya lagu eedeeyay inay ku xadgudbayso qaanuunka caalamiga ah Soomaaliya dhinaca diblomaasiyadda ayay u muuqatay Itoobiya inay kaga adkaatay Abiy Ahmedna marka waxa uu doonayaa albaab dhinaca rajada ah oo u furma bulshada Soomaaliyeed ayaa indhaha ku haya kulankan iyo waxa ka soo bixi karaya laakiin diblomaasiyiinta la hadlay barnaamijka Barrow Show waxay leeyihiin waxa la filayaa kulankan inuu noqdo mid miro dhal ah Itoobiyana waxay dareentay culayska dhinaca diblomaasiyadda oo Soomaaliya ay kala kulantay iyadoo siyaasiyiinta Soomaalida ay Itoobiya markii hore ay u haysan baa yiri in dhinacan diblomaasiyadda ay ku dagaalami karaan laakiin hadda Addis Ababa waxa uu cadaatay in aan laga talaabi karin xayndaabka dhinaca sharciga waxaana ay ku qasbanaatay in nidaamka hogaamiya iyo rajiimka Addis Ababa ee Abiy Ahmed uu hoos kalo dalka Turkiga oo Soomaalida xushmad weyn ay u hayaan taasina waxay keentay in wada hadalka la filayo berri oo Arbaca inuu dhaco laakiin waxay su'aali ka taagan tahay haddii Itoobiya ay ku adkaysato mowqifkeeda muxuu noqon karaa mowqifka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh uu qaadan karayo kulankan waxa uu noqon doonaa mid kamida kuwa loogu rajada badan yahay inay wax ka soo baxaan haddii se kulankan uu noqon waayo mid miro dhala waxay noqon doonaan albaabadii wada hadalka iyo diblomaasiyadda inay si dhaba u soo xirmeen soo dhawaada saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wada hadalka Soomaaliya iyo waliba Itoobiya uga furmaya dalka Turkiga iyo waliba rajada laga qabo arrintan inay si nabada ku soo dhamaato si aad taxliil iyo warar kale oo dheeraad u heshaan fadlan YouTube-keena subscribe saar
isla markaana muuqaalkan la wadaag saaxiibada si aragtideenna iyo weliba barnaamijyadeena ay meel dheer u gaaraan soo dhawaada